maanta waxaan isugu nimaanay kulan muhiim ah oo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee wadanka Jarmalka sugan ay ku dhisteen urur ay ku mideysan yihiin Somali Journalists runtii waa arin aad iyo aad ii farxad gelisay in badan baanu arrimahan ka shaqeynaynay wax badan baanu dheeraadhirinaynay laakiin maanta guusheedii qayb ka mid ayaan haynaa waxaan u baahanahay in wariyaasha kale ee Soomaaliyeed ee Jarmalka ku sugan inaan markaas kadibna shirweyne aan isugu imaan doono insha Allah halkaasna lagu dhisi doono ururkii oo ka balaaran midkan insha Allah taala ugu dambeyntii ururku wuxuu isla gartay in arintaasi ay il gaar ah ku fiiriyaan oo gabadha wariyaha shaqadeeda iyo xorriyadeeda u sii daayaan waayo lama joogo xilligii la iscaburi lahaa lama joogo xilligii maxaan ku raahdaa wariyaasha dhibaatooyinkooda ay sii socon lahaayeen waxaan u baahanahay in wariyaasha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibta laga daayo oo ay markaa u gartaan in aragtida ay gudbinayaan aragtidii bulshada Soomaaliyeed aysan ahayn midooda shirkaas oo saxafiyiin kala duwan oo deegaanada Soomaalida ah oo ku nool halkan dalka Jarmalku ay qayb ka ahaayeen muddo aan soo naaqishaynay sidoo wada ogsoonahay saxaafadu waxa weeye rukunada ugu waaweyn ee ummad kasta leedahay ee ay iska dhex aragto waa muraayad bulshadu isku daawato shaqadaas saxaafadu muddo dheer waxay ku soo haysay si iska ah anagu ka duulayna shaqada adag ee saxaafadu hayso waxaan go'aansanay in la mideeyo aragtidii iyo aqoontii saxaafadda si loo helo saxaafad dhisan maadaama wadamadan aynu joogno gaar ahaan Jarmalka ay jiraan ujeedooyin badan oo aynu ka leenahay oo kamid tahay inaynu wax ka korarsano inaynu aqoon ka barano in wariyaha kale uu ku xidhnaado sidaa daraadeed aad waxaan usoo dhaweynayaa oo aan ugu faraxsanahay maanta Somali Journalist uu yahay waxaanu cod dheer ku cambaaraynaynaa oo aan ugu sheegaynaa xukuumadda Somaliland inay sii dayso oo ay xorriyadeedii u soo celiso saxaafiyadaasi kuna xidhan tahay xaq darro waxa weeye dastuurku ama dastuurka deegaanka xukuumaddaas ay ku shaqeynaysaa wuxuu dhigayaa in rumaan la siin karo 7 cisha 3 rumaan baa hadda loo jaray waa cadaalad darro saxafigu wuxuu ku hadlayaa codka bulshada wuxuu damaanad u haystaa inuu hadlo oo war iyo barnaamij iyo xog iyo dabagalba sameeyo xaqeeda dastuuriga bay wadatay waa in la sii daayo shuruud la'aan lagu sii daayo cadaadiskana laga daayo saxaafadda si ay shaqooyinkeeda iyo waajibaadkeeda u gudato aad iyo aad baad mahadsantiin dhammaantiin shirkii maantay waxyaabahan ka soo saarnay waxaa ka mid ah in aan ku dhawaaqnay urur saxaafadeed aynu magaciisa u bixinay Som Deutsche Journalist ama Somalische Deutsche Journalist oo ka howlgeli doona dalka Jarmalka sidoo kale waxaanu sameynay guddi soo diyaarin doona shirweyn aad iyo aad ayaan soo dhaweynayaa ururka laga sameeyay walibana xirfadlayaasha saxaafaddu ay sameeyeen qayb baan ka nahay oo la shaqeynana waxaan rajaynayaa in Ilaahay uu ka dhigo ururkaasi mid caalamiya oo si caalamiya u shaqeeya sidoo kale mid ummadda faa'iido weyn u soo kordhiya oo ay ku haqabeelaan danyarta iyo dadka Soomaaliyeed ee ku jooga ama ku sugan dalka Jarmalka iyo guud ahaan qaaradda Yurub ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka waa hambalyeynaya waa guul u soo hoyatay saxaafadda Soomaalida ee dalka Jarmalka waa guul inoo soo hoyatay oo guushaasna waa hambalyeynaya waxaan si mug weyn u cambaaraynaya xadhiga saxafiyadda Bushaare Cali Baande oo ku xidhan xaq darro bil ugu xidhan xukuumadda Muuse Biixi Cabdi saxaafaddu waxay dhalatay iyada oo xor ah inaan xor ahaato weeye dastuurka ayaa qeexaya xornimada qofka wariyaha ah Bushaare xadgudub ay maanta samaystay oo loo hayaa ma jirto maxkamaddu waaran uma hayso gal dacwadeed sax ah oo ay maanta ku xidhan tahay cid Somaliland oo bixin kartaa ma jirto cidda ay khusayso oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha oo lagu eedeynaya xadhiga Bushaare Cali Baande waxaan codsanaynaa in si degdeg ah xorriyadeedii loogu soo celiyo